muddo kordhinta golaha guurtidu ay ansixiyeen ayaa noqotay arrin si weyn u gelgishay siyaasadda Somaliland dood iyo kala aragti duwanaanshiyo baahsan warbixintan waxay iftiiminaysaa waxa sababay go'aankan cidda ka faa'iideysanaysa iyo saameynta uu ku yeelan karo mustaqbalka doorashooyinka dimuqraadiyadda iyo kalsoonida shacabka sidoo kale waxaynu dul istaagaynaa falcelinta siyaasiyiinta khubarada bulshada rayidka ah iyo dareenka shacabka ee sida weyn uga muuqda baraha bulshada golaha guurtida Somaliland ayaa si rasmi ah u ansixiyay muddo kordhin dhan 27 bilood oo loo sameeyay golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka kadib dood iyo kala aragti duwanaanshiyo xoogan oo ka taagneed muddada la kordhinayo iyo qaabka doorashooyinka loo qabanayo fadhiga lagu meelmariyay go'aankan waxaa ka qayb galay 27 mudane iyadoo 17 ka mid ah ay codkooda ku taageereen muddo kordhinta 27 waa lagu ogolaaday saasuu ku ansaxay wabilaahi tawfiiq go'aankaasi ayaa yimid kadib markii golaha guurtidu ay diideen soo jeedimo hore uga yimid xukuumadda iyo komishanka doorashooyinka qaranka kuwaasi oo iskugu jiray in muddo 10 bilood ah loo kordhiyo ama in la sameeyo muddo kooban oo ku xidhan wakhtiga ay suurtoobayso qabashada doorashooyinka sida uu dhigay dastuurka Somaliland doorashada golaha guurtidu waxay dhacdaa sanad kadib doorashada golaha wakiilada marka muddo kordhin la sameeyo taas macnaheedu waxa uu yahay in golaha guurtidu uu si toos ah uga faa'iideysanayo go'aankan maadaama ay iyaguna heli doonaan muddo dheeraad ah oo gaadhaysa 39 bilood arrintaasi waxay dhalisay dood xoogan oo ku saabsan isku dhaca danaha siyaasadeed iyo su'aasha ah in gole muddo kordhin sameynaya uu isla markaana isagu uu faa'iido ka helayo go'aanka uu gaadhayo dhanka kale warbaahinta madaxa bannaan ayaa laga mamnuucay in ay galaan xarunta baarlamanka gaar ahaan aqalka golaha guurtida oo uu ka socday fadhigan xasaasiga ah go'aankan oo lagu sheegay mid ay si wadajir ah u gaadheen shirgudoonnada labada gole ayaa ogolaaday oo kaliya warbaahinta dowladda taas oo dhalisay dhaleecayn ku saabsan hufnaanta isla xisaabtanka iyo xorriyadda warbaahinta muddo kordhintan dheer ayaa sidoo kale si weyn uga dhex abuurtay bulshada dareen walaac leh baraha bulshada waxaa si degdeg ah ugu faafay doodo iyo falcelino muujinaya diidmo ballaadhan iyadoo dad badan ay ku tilmaameen tallaabadan mid dhaawacaysa kalsoonida lagu qabo hanaanka dimuqraadiyadeed ee Somaliland ay ku faani jirtay sanadihii u dambeeyay cabdifataax ibraahim sheekh oo hore uga tirsanaa komishanka doorashooyinka Somaliland isla markaana ah khabiir arrimaha doorashooyinka ah ayaa qoraal uu ku baahiyay baraha bulshada ku tilmaamay go'aankan mid abuuraya su'aalo siyaasadeed iyo sharciyeed oo culus waxa uu isweydiiyey sida ay suuragal u noqon karto in doorashada guurtida iyo tan madaxtooyadu ay isku jiraan wax ka yar 30 maalmood marka la eego jadwalka cusub ee la sameeyay sidoo kale wuxuu xusay in muddo kordhin la sameeyo xilli madaxweynuhu dalka ka maqan yahay ay tahay arrin ku cusub siyaasadda Somaliland isagoona tilmaamay in sugitaanka madaxweynaha ay haboonaan lahayd si loo helo go'aan qaran oo midaysan waxa kale oo uu ka digay saameynta cimilada kulul ee xeebaha Somaliland ku yeelan karto ololayaasha doorashooyinka haddii jadwalku sidan ku sii socdo garyaqaan guuleed Axmed Jaamac guuleed dafac ayaa isaguna si adag u dhaliilay muddo kordhinta isagoona su'aal geliyay waxqabadka baarlamanka marka la eego muddada iyo dhaqaalaha ay qaataan waxa uu sheegay in labada aqal ay sanadkii ansixiyaan sharciyo kooban halka mushaharkooda iyo gunooyinkooda ay yihiin $10 bishii taas oo uu ku tilmaamay culays dhaqaale oo aan bulshada danyarta ahi ay qaadi karin dhanka siyaasadda xisbiyada iyo xukuumaddu waxay muujiyeen aragtiyo kala duwan madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro ayaa hore uga codsaday labada gole in aan la kordhin muddo ka badan tan ay codsadeen komishanka doorashooyinka qaranka isagoona ka digay saameynta siyaasadeed iyo mid bulsho ee ka dhalan karta muddo kordhin dheer gudoomiyaha xisbiga ka Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa isaguna sheegay in muddo kordhintu ay tahay natiijo ka dhalatay jahwareer siyaasadeed iyo isbedel joogto ah oo ka dhex jiray xukuumadda iyo xisbiga mucaaridka ee kulmiye wuxuuna xusay in muranka ka taagnaa nooca diiwaangelinta codbixiyaasha uu dib u dhigay xal kasta oo horseedi lahaa doorasho wakhtigeeda ku dhacda inkastoo uu sheegay in aan guurtida kaliya dusha laga saari karin eedda xaaladan haddana wuxuu carabka ku adkeeyey in xal waara lagu gaadhi karo oo kaliya hirgelinta diiwaangelin cusub oo dhammaystiran si loo qabto doorashooyin xor iyo xalaal ah sidoo kale ururada bulshada rayidka ah ayaa si adag uga hor yimid muddo kordhinta
iyagoona ku tilmaamay tallaabo dib u dhigaysa horumarka dimuqraadiyadeed iyo kalsoonida shacabka waxayna ku baaqeen in la ilaaliyo jadwalka doorashooyinka iyo in hay-adaha qaranku muujiyaan mas-uuliyad siyaasadeed iyo ixtiraam dastuuri ah. ururada bulshada rayidka ee Somaliland waxay si adag u cambaaraynayaan muddo kordhinta xad-dhaafka ah ee loo sameeyey golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka taasoo ah mid aan hore u dhicin dalka in muddo intaa leeg loo sameeyo muddo kordhin aan sharciyeysnayn iyadoo ay jirtay fursado lagu qaban karo doorashooyinka si waafaqsan sharciga jadwalka ay komishanka doorashooyinku soo jeediyeen. ururada bulshada rayidka ee Somaliland waxay muujinayaan walaac qoto dheer oo ku saabsan qodobadan hoos ku qoran. kow ka talagelin la'aan qaybaha bulshada markii la waday wada tashiga lagalama tashan qaybaha kale ee bulshada sida ururada bulshada saxaafadda culimada cuqaasha iyo waxgaradka dalka. iskaashaanbuuraysi labada gole ee sharci dejinta ah waxaanu dareensannahay ama ka warhaynaa inay jirto iskaashaanbuuraysi xooggan oo dhex maray labada gole waa golaha guurtida iyo golaha wakiilada taasoo ah inay heshiis ku yihiin inuu muddo midka kale u kordhiyo saamaanta ay ku leedahay dimuqraadiyadda iyo ictiraafka Somaliland. muddo kordhintani waxay dhaawac toos ku tahay sumcadda dimuqraadiyadeed ee Somaliland iyo ictiraafka Somaliland heshay maadaama ay uu nidaamkeenu muujinayo dibudhac iyo nuglaasho ku yimid hanaanka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda dalka. afar ka maqnaanshaha doorashada beesha caalamka waxaanu si weyn u dareemaynaa ka maqnaanshaha doorkii beesha caalamku gaar ahaana wadamada saaxiibka dhow la ah Somaliland sida Ingiriiska midowga Yurub kuwaas oo door muuqda ka qaadan jiray taageerada hanaanka dimuqraadiyadeed ee Somaliland iyo taageero joogta ay siin jireen ururada bulshada rayidka ah taasoo imikana noqotay mid meesha ka baxday. khatarta dibudhaca doorashooyinka dibudhacyada isdaba joogga waxay muujinayaan in nidaamka doorashooyinka Somaliland uusan si buuxda ugu diyaarsanayn xalinta khilaafaadka doorashooyinka si sharci iyo hay'adeed toona taas oo keentay in arrimaha qaar ay gaadhaan heer ay odayaal beeleed ku kala xukumaan arrintaas oo dhaawacaysa hay'adka dawladnimo iyo nabadgelyada dalka. 6 muddo kordhin ka baxsan xadka macquulka ah muddo kordhinta maanta loo sameeyay golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka waa markii ugu horeysay ee muddo intaa leeg la kordhiyo iyadoo codsigii komishanka doorashooyinku ahaa inay doorashada ku qaban karaan muddo ku siman 10 bilood gudahood. xaaladda komishanka doorashooyinku haddii ay muddo kordhinta maanta la sameeyey ay dhaafto 10 bilood oo ay dhaaftayna waxay muujinaysaa nidaam cusub iyo komishan cusub iyo carqalad cusub oo ku soo biiri karta hanaanka ay u shaqaynayeen komishanka doorashooyinku. ururada bulshada rayidka waxay ku baaqayaan qodobadan soo socda. kow in si degdeg ah loo qabto doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka taasoo ku salaysan codsigii komishanka doorashooyinka ee ahaa muddo 10 bilood ah. 2 iyadoo ay sharci darro tahay muddo kordhin kasta oo dhacda waxaanu cambaaraynaynaa muddo kordhin kasta oo ka badan 10 bilood ee komishanka doorashooyinku codsadeen. 3 in la xoojiyo wada tashiga bulshada iyo dhammaan daneeyaasha doorashooyinka lagana dheeraado talamaroorsiga la caadaystay. 4 in beesha caalamku qaadato doorkoodii taageero dimuqraadiyadda Somaliland iyo isla xisaabtanka nidaamka dawladnimo iyo shacabka. 5 annagoo tixraacayna khudbad sanadeedkii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi kagana codsaday golaha guurtida inaan la kordhin in ka badan 10 bilood ee komishanka doorashooyinku soo codsadeen cid kasta oo soo jeedinta komishanka iska indhatirtay waxay ururada bulshadu u diyaar yihiin in loo gudbiyo maxkamadda dastuuriga ah annagoo adeegsanayna awoodda ururada bulshada rayidka kana codsanayna madaxweynuhu isaguna inuu awooddiisa dastuuriga ah u adeegsado. ugu dambayn ururada bulshadu waxay adkaynayaan ilaalinta dastuurka kalsoonida shacabka iyo hanaanka dimuqraadiyadeed dalka oo ay tahay mas'uuliyad wadadareed ama wada jir oo ah
in la dayici karin marnaba. gabagabadii muddo kordhinta cusub waxay noqotay mid ka mid ah go'aamadii ugu muranka badnaa ee siyaasadda Somaliland soo mara sanadihii u dambeeyay inkastoo taageerayaasheedu ay ku doodayaan inay lagama maarmaan u tahay diyaarinta doorashooyin lagu kalsoonaan karo haddana mucaaridka iyo qaybo badan oo bulshada ahi waxay u arkaan tallaabo sii fogeyn karta kalsoonida shacabka iyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee Somaliland ay ku caanbaxday su'aasha hadda taagan ayaa ah Somaliland ma awoodi doontaa inay ilaaliso sumcadeedii dimuqraadiyadeed iyadoo ay isa soo tarayaan muddo kordhino iyo khilaafaad siyaasadeed mise waxay wajihi doontaa marxalad cusub oo shaki iyo kala qaybsanaan siyaasadeed leh warshada daqiiqda iyo calafka xoolaha ee Boundary Mills waa hanti dhab ah oo dhulkaaga hooyo ku taala waana warshad laga soo shaqeeyay oo wax waliba ay u dhameystiran yihiin maantana waxay noo farxad ah warshadu bulshadeeda u soo bandhigayso fursadda qaaliga ah ee maalgelinta soo iibsiga qamadiga loo bedelayo daqiiqda cas daqiiqda cad iyo calafka xoolaha waana suuq aad u weyn oo lagu qiimeeyay 300 milyan oo dollar waqtiguna waa xadidan yahay inaan laga buuxinin daawo xisaab xidaa furan 9kii cishaba iyo faa'iido lagu wadaago 6 biloodba www.boundarymills.com